hii mambo ya ufugaji wamebadilika kwa waxaa maanta magaalada Mandera laga daahfuray mashruuc loogu magacdaray isbeddelka cimilada iyo taakuleynta beeralayda taasoo sare loogu qaadayo wax soo saarka beeralayda iyo inay gaaraan isku filnaansho. daahfurka mashruucan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda sare ismaamulka Mandera oo uu hogaaminayo barasaabka ismaamulka iyo qaar ka mid ah gudiyada beeralayda ismaamulka Mandera. inta uu socday daahfurka mashruuca ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah gudiyada beeralayda. waa nin BD ka shaqeynaa meel walba tago soo maray waa nin fiican ninka bini'aadinka lacagta aad lagu siiyo waxba ku matarayso waxa ku tara jidka ambaana hadaad martid waa wax la isla leeyahay faa'iido beer hadaad falatid waxa wax la isla dad walba isla cunaa laakiin hadaan intaan ka sugno America wax laga keeno oo Yurub laga keeno oo raashin xoog lagu bisleeyay dadka intii badan hadda waxa u dhamaanaan cancer aniga waxaan aaminsanahay raashinkan la soo buufiyay istooka 20 sano soo yeelay oo meeshii baad cancer wax dadku u dhacay taas way waa intaan taas ka baxna aan xooggan isticmaalno oo waxa dhulka jiraan soo bixino oo raashinkan gacanta aan ku keensataan cunno markii hore dadka climate smart Kenya waxayna bareen lacag waa noo keeneen sub county kaawada account waxa ugu jiraan 5 milyan ugu jirto hadda la idin siina lacagtaas waa ugu yartahay lacag badan oo 20 milyan sub county dhammaantii la siyaan rabna. ugu dambeyn waxaa daafurka mashruuca soo xiray gudoomiyaha ismaamulka Mandera Ali Ibrahim Roba oo ugu baaqay bulshada inay ka faa'iideystaan mashruuca isbeddelka cimilada iyo taakuleynta beeralayda. hadba sida dadaalku badisaan bay lacagtana loo kordhin doonaa wax soo saarkiina markuu kor u kaco programkana kor baa loo kicin doonaa idinkan idinku xiran tahay haddaad si fiican shaqada u qabataan waxaan rajaynaynaa in aan ka codsano World Bank in project hadda Lafe Mandera South iyo Mandera Western ay ku daraan laakiin haddadan qaybaha loogu talagalay waa qaybta webiga saaran kaliya iyo dadka kale mar horeba dadaal weyn soo muujiyay oo beeralay ah webigana saarneen laakiin beera fadhanayo marka la aado wax ay tacabanayaan ay muuqato. Ali Ibrahim Roba ayaa guddoonsiiyay 12 koox oo ka mid ah beeralayda ismaamulka Mandera 42 milyan oo shilinka dalka ah. mashruuca isbeddelka cimilada iyo taakuleynta beeralayda ayaa waxaa iska kaashaday dawladda dhexe iyo bangiga adduunka. dhanka kale dawladda ismaamulka Mandera ayaa daahfurtay mashruuca talaalka xoolaha oo lagu beegsanayo ilaa 10,000 oo xoolo ah oo isugu jira geel, ari iyo lo guud ahaan ismaamulka Mandera. Cabdiqafaar Habi, Dawa Media.